بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا وعنا ونكسنا داود الكسر دوادا برامجka talada dhakhtarka TV-ga dalsan oo xilligan kala aad ka daawataan TV-ga dalsan xaruntiisa magaalada Muqdisho ayuu barnaamijkeedii kaga yimaadaa barnaamijkan TV-ga ah idinkaga yimaada ee talada dhakhtarka waxaanu ku soo qaadanaa hadba cudur aan isleenahay inta barnaamijka daawanaysa aad uga faa'iidayaan barnaamijkan talada dhakhtarka TV-ga caawana waxaa igu martay Dr. Shaafici Aadan Dirir oo soo ka howlgala isbitaalka Shaafi Hospital ee magaalada Muqdisho oo dhakhtarku ku takhasusay qalliimada guud waxaana caawa barnaamijku talada dhakhtarka TV-ga dalsan uu ku martiyahay waxaana kala sheekaysan doonaa hadba dhibaatooyinka qofka qalliinada sameeya uu kala kulmo bukaanada loo keeno ku soo dhawaada daawadayaal barnaamijka talada dhakhtarka ee TV-ga dalsan waagaag inta badan bulshada ku dhaqan geeyiga Soomaaliya dhibaatooyinka ay ka sheegtaan waxa ugu badan dhaawacyada waliba qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho waxaana taa u sii dheer inta badan qalliino lagu sameeyo cudurka baabasiirka taa oo dhibaatooyin fara badan ay kala kulmaan marka ay dhacdo in qalliin lagu sameeyo cudurkaasi hadba si aan wax badan ugu ogaano qaabka loo marayo qalliinada guud isla markaana qofka qalliinka sameynaya looga baahan yahay takhasus teleeg ayuu qaadan karaya isla markaana qalliinada ku soo dhex jiri karaya Dr. Shaafici Aadan Dirir ayaa barnaamijka caawa talada dhakhtarka TV-ga dalsan igu martiya ugu horeyntiina waxaan weydiiyay bal inuu ka waramo dhibaatooyinka laga mari karo qof bini'aadan marka lagu sameeyo qalliino kala duwan Dr. Shaafici Aadan Dirirna waxa uu ku jawaabay sida tan aad baan kaga mahadcelinayaa dhammaantiin wacyigelinta iyo waxyaabaha aad bulshada la wadaagtaan tanna kale waxay ka mid tahay arrintaas bay daba socotaa soo dhawaada mahadsantiin aad u mahadsantahay markale waan kaaga mahadcelinayaa qaaliga la siisay دكتور عالم موضوع رأينا أننا يقدر كنا تعاوني لو ذا من واحد هاو قلينا مركل اللي هذا الكلام هاو أكبر ذاك وقف البورتر وسوق ديرة كلنا هاوش سوقته حاكم كل فينا هاوش مر أول قراءة استلام هاوش وقام كريسة بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صابت يوكلفتي إن قليمة دورته واحد لحريرته waxyaabihii wadankeena ka dhacay yani waxaan kamid ahaa dadkii fursadda u helay in ay dugsiga sare ilaa dugsiga hoose ilaa jaamacadda bilowgii dadkii dhigan jiray oo systemkii ama dowladdii markaas jirtay opportunity-ga ama janiska ay u siisay inay hab lacag la-aan wax ku bartaan waxaan kamid ahaa arday dugsiga sare ee banaadir ka baxday kabacdi waxaan dadkii lagu bilaabay 2 sano oo gurmadkan ku jirnay waxaan noqday ciidanka badda Baraawe aan soo joogi jiray iyo xarunta oo hadda xarunta ciidanka badda ay ku lahaayeen magaalada Xamar imtixaankii waxaan u galnay jaamacadda waxaan kamid ahaa dadkii ku guuleystay jaamacadda ummadda faraceeda ama faculty-ga oo caafimaadka anagoo dhigana oo adiga 3 sano markii noo dhowdahay waxa dhacay burburkii markuu dhacay waxaan goobjoog u ahaa u soo joogay dagaalkii sokeeye markuu dhacay in dad badan oo Soomaaliyeed ay iska dhimanayeen dhaawac daraadeed ama dhiigbax marka sababta igu dhalisay markaan Yurub tagay in aan qalitaanka sameeyo waxa kamid ah inaan umadaas maadaama dhibkan uu joogay sidii loo dhimanahay badbaadadooda inaan ka mid noqdo bay ahayd sababtaas waan ugu kaliftay xaqiiqan haddii aan rabi lahaa inaan ku noolaado wadamadaas Yurub iyo meesha wax ku soo bartay waxyaabaha igu fududaa waxa kamid ah takhasusyo kale takhasusku waxa weeye waa wax oo u baahan xirfad u baahan waa wax u baahan gacan qabasho oo training in lagu sameeyo u baahan marka wadamada Yurubna waa dareemi kartaan waxa ku badan dadka takhasuska sameeynaya marka chance looma helo in oo ku gacan qabto oo wax ku dhiibo anoo taas baan u bareeray oo aan doortay inaan markaa qalitaankaas sameeyo waxaan sameeyay general surgery iyo thoracic labadaba baan sameeyay iyo master oo asna
lagu barto habka casriga ee qalitaamada loo sameeyo ama thoracoscopic ama laparoscopic la yiraahdo. Saan kuu sheegayba sababta ugu kaliftay taasay ahayd juhdina waxaan ku bixiyey in aan xataa qalitaamada nooca meelo aan lagu samayn inaan meel naga fofko 200 kilomitir ama 300 kilomitir inta aan lacag ku bixino meeshaan wax ka baranahay meelo ka fog si aan baan yiraahdo qalitaanka noocaas ama technicaas aan u soo barto. 1991 ilaa iyo laga gaarayay 2013 mar walba niyadeyda ma deganeyn waxa ku jirtay mar wadanka laabo tag wax u qabo xaqiiqan markii Talyaaniga aan waxbarashada ku dhameystay ilaahay xamdigiis dadka ugu wanaagsan oo jaamacadaha ka baxay ku jirnay marka chance waxaan u helay in oo jaamacad aan wax ka dhigo isbitaal private iyo mid public aan ka shaqeeyo. sababta marka dad badan oo ehel ama qaraabo ah baa oran jiray ha imaan wadanka maxaa ku kalifaya khatar badan baa jirta waa la isdilayaa waa marka aniga waxaan aaminsanahay wax dila ama nooleey ilaahay weeye sababtii aan u doortay marka inaan qalitaan sameeyo maaha inaan Yurub joogo waxay inaan Soomaaliya ku soo noqdo marka xaqiiqadiina markii aan imid 2013 wasaaradda caafimaadka dhakhaatiir badan oo khabiira oo dibadda wadanka joogay noo yeertay wadanka markaa imid waxaan goostay in aanan noqoninba marka waxaan imid November markaa imid oo shirki u dhacay waxaan nala kulmay qarax nala kulmay isbitaalada wadanka aan dadka say u dhibanayeen iyo say u dhimanayeen baan arkay. November markii fasixii yaraan watay inta ii dhamaaday shirkiina dhamaaday baan waxaan aaday Talyaaniga ku noqday markaas waxaan goostay inaan mar dambe aan Yurub sii joogin marka January 26 waa xusuustaa baan wadanka ku soo noqday 2014 qalitaamadan bilaabay January 26 markaan imid 27 qalitaamadan bilaabaan sidii ugu jira maalin aan qalitaan ma sameeynin oo dad Soomaali oo dhiban aan u sameeyna ma jirto kamana bixin 2014 ilaa iyo hadda wadankii xataa oo aan wax ku soo bartay kuma noqonin marka sidii aan u joogaa aad badan baa santahay tuuray hawsha marka la qabanayo markaan eegno kale waxay u baahan tahay hawlkiisnimo qof walba bil aadan ma inuu hawsha qaban karo Soomaaliya maxaa farqiga u dhaxeeya sagaashamaadkii iyo 2000 hadda dhaqaatiirta lagu jiro habka qalliinada qofka bil aadanka loo wallahi farq weyn baa u dhaxeeya ani waxaan xusuustaa anaga qofba waxa markaan wadamadaas joogno saan ku sheegay dabagal baa jira qofkan wax iskama qalo qofka inuu waxa weeye oo jaamacad ka soo baxay oo dhakhtar uu yahay ka bacdi inuu takhasus leeyahay wax ku qali karo taas oo jirta xataa wax kuma qali kartid waxa la rabaa qalitaan walba oo nooca waa bilyan noocyada qalitaanka tusaale haddaan kaa soo qaato xamiitida oo kale haddii qofku inuu sameynayo waxa carbon leaning baa jira ma ogta tiro loogu talagalay oo la rabo qofku inuu sameeyay ba markuu intuusan asagu markaan yiraahdo ii sheegay aan la madax banaynin marka dad oo supervisor ku ah oo saa u shaqeynaysid iyo habka u sameynaysid ku arkaya jira ani waa xusuustaa markii aan imid wadanka waxyaabo ugu horeeya oo aan la fijici jiray waxa kamid ahaa dhakhtarka markaan qalitaan ka soo bax ma lagu guuleystay baa la oran jiray marka maxaa laga wadaa ma lagu guuleystay baan is oran jiray markaas ka bacda waxa ii soo baxday inay dhici jirtay marka dadka qalitaamada sagaashamaadkii loo sameynayo inuusan xataa kasoo bixi jirin meesha qalitaanka lagu sameynayo oo waa dhintay la oran jiray sabab kastaba waxa u dhintay annagana waxa yani dhib nagu ah
brimtol kale marka oo laparoscope-ka ama qalitaanka mini-invasive surgery ama laserka Soomaali u taqaan la sameynayo qofkii markaan inta u diyaarsaday inaan u sameeyo xaalado marka waxaa jira qalitaanka habkii loo filinayo wax ka bedeli kara markii uu jeexitaan yar igu noqdo in aan anigana maaragtaa saa dhibi jirtay iska wadaaba in la yiraahdo ma lagu guuleystay oo qofkii oo nool uu soo baxo marka farqa u dhaxeeya waa dareemi kartaa haddana waxaan ka hadlaynaa bilowgii markaan wax xasuustaa markaan aan bilaayo qofka ugu horreeyay waxaan ahay waddanka qalitaamada noocaasa oo mini-invasive surgery ama laserka ku fuliya inaan dadka ka dhaadhiciyo iraahdo hab fiican oo qalitaamada loo sameeyo dhib lahayn baa jira oo ku sahlahaya inaadan xanuun badan aragin inaad markaa dhaqso isbitaalkii uga baxdid inaad shaqadaadii horay ka wadatid inaad xataa quruxda marka la fiirinayo uusan nabar kaa muuqan dad dhib bay ku ahayd in lagu qanciyo laser markii waa aniga waxaan korontada waxaan waa يعني فكر كله laga haystay hadda waxaan gaarnay heer marka alxamdulillah oo 2020 ka amarayno qofku wax walba inuu yiraahdo ay dadkii awareness-kooda ama fikirkoodii uu koray ay rabaan habka ugu fudud oo qalitaamada loo fuliyo mid walba inuu ku leeyahay waxaan rabaa in la igu sameeyo mini-invasive surgery ama laser la igu sameeyo marka halkaas waan maraynaa horumar weyn baan dhanka caafimaadka haddaan waddanka haddii la fiiriyo sagaashamaadkii ilaa xataa haddii la fiiriyo 2000 iyo saan kuu sheegay iyo 10kii dhowrtan wixii ka horreeyay iyo wixii ka dambeeyay hadda isku dhigno horumar weyn baa laga sameeyay waxyaabo badan oo dibadda loo aadi jiray baan dibadda loo aadin bilcagsi aniga waxaa ii yimaada dad oo Soomaaliyeed oo Mareykanka yimid Ingiriis ka yimid Norway ka yimid wadamada dariska iska daa oo halkan u soo dooranaya qalitaamo in loogu sameeyo marka sababta ay u imaanayaan waa laba sababood weeye yani experience-ga ama result-ga ama waxa ka soo baxaya qofkaas marka qalitaanka loo sameeyo bay ku faraxsan yihiin waxayna ogyihiin qof oo khabiira inuu waddankoodii joogo oo uu qalitaamaas u sameynayo tan labaad haddaan fiirino wadamada dariska kharashkiina aad buu uga yaryahay oo Nairobi-dan iyo dad badan baa ka imaanaya waxay uga imaanayaan diyaaradda soo qaadanaya meeshan bay imaanayaan oo isku qalanayaan way laabanayaan waxaasoo dhan ayagoo sameeyey kharashkii uga bixi lahaa wax ka yar baa uga baxaya marka horumar weyn baa la gaaray waxyaabaha horumarka lagu gaarana waxaa kamid ah Soomaaliya waxay ku maamaadaa far kaliya fool ma dhaqdo waxyaabaha horumarka keenay waxaa kamid ah dadka teamka ama si wadara lagu shaqeeyo wadar maar waa sidii gacmo jir wax ku qabtaantii way moogta dhakhtarka kaligiis ama surgeonka ama dhakhtarka qaltaan kaligiis ma qaban karo sababta waxa u baahan tahay dad oo takhasusad kala duwan leh oo diyaarinta bukaanka in lagu soo diyaariyo adiga marka aad qortid waa qalitaan waxa loo baahan yahay qof oo ku miisaamaya oo dhakhtarka suuxiyo kale bukaankii uu controlaya uu fiirinaya yani risk assessment waxa la yiraahdo ama si loo ogaado qofkan iska qalma macna ma sameynayso qofka inta la qalo in oo ama ma ka bacdi dhinto ama meesha kaaga dhinto muhiimadu waxa weeye in oo khatartaas inta la miisaamo qofka marka uu aragtay in uu ka bixi karo qalitaankii markaas baa qalitaanka loo sameeyaa saan kuu sheegay marka waxa lagu shaqeeyaa hab wadareed baa lagu shaqeeyaa dad Soomaalida waxa walba waa leeyihiin balkan yaraada dhibaatana way leeyihiin burburka waxyaabaha hadda isbitaal ahaan dadka jooga takhasusad kala duwan baa noo jooga waa dad oo
hawl qofka markuu ku dhaqaaqayo kale qof markii inuu ganacsiga loo rabo ama inuu howlo kala qabo oo galo rabo waxay ku qaadanaysaa hawsha uu fikir galo haddii hawsha ku dhaqaaqana waxaa imaanaysa qofka inuu walba loo waxay gelada jir soo wada mar waxa weeye waxyaabaha qaritaankii igu horeeyay oo muddo dheer buu qaatay لكن waxay muuqata gabarka marka fiirsawada kullu ilaa afar qof oo hal meel oo quraha ilaa meesha oo agro soo baxday qalinkaas oo soo meesha lagama yaabin xididad iyo qabata ay ku jiraan fiir qoorta waa meesha isku xirta maskaxda iyo jirka intiisa kale ma dareemi kartaa waxa mara xididadii dhiigga oo naaka imaanayo maskaxda aadayo way maraan neerayaashi oo maskaxda ka imaanayay oo jirka intiisa ka hela aadayana way maraan marka wax walba waxay ku xiran tahay aqoonta oo qofku u leeyahay qofku hadduu aqoon u leeyahay wixii waa fudud yihiin haddii uusan qofku aqoon u lahayn xataa wax fudud xid yaroo la gooyey buu qofku u dhimanayaa marka wax walba waxay ku xiran tahay aqoonta saas darteed qofku marka uu naftiisa ku aaminayo qof kale anaga wadamaas waxaan naqaanaa keliya xataa takhasus buu leeyahay la isuguma aamino waxaa la isugu aaminaa shaqaduu qabtay yani jawaabta resultiga shaqada qabatay saadoo takhasusla waxaa laga yaabaa dhowr dad inaa qashid ay iska leedaan ama complicationka uu kugu badan yahay marka annaga wadamadaas waxaa jira buwaa qofka uu leeyahay waa la yaqaanaa historygiisa intaasoo qaritaan buu sameeyey complicationka ama khataraha ku yimid haddii qof dhintay waa wax qoran weeye marka soomaalida waxaan kula talinaya qofka aad rabtid in aad markaan yaraado ii sheeg aada naftaada ku aamintid wareyso xogihiisa wareyso halkan ma waxaan arkahayaa yani aniga waxay ugu dhacaan inii sheegi maadaama shaqadu ay iska badan tahay dhakhaatiir oo waddankeenana oo soomaaliya oo takhasusna aysan ay yar yihiin ama aan la heli karininba kuwa ajnabi ah oo CV-gooda iyo shahaadooyinkooda ay saxsan yihiin baan dalbaday way ii yimaadeen markii ii yimaadeen qofkii ugu horreeyaan u dhiibay yani mas-uuliyaddii saaran wey kama tagahayo waa fiiriyey marka waa qofku yiri darawal baan ahay baawur baan wadi aqaanaa oo telefaraha u dhiibtay oo tira wad hadduu wadi kara iyo haddii kale waa isla marka waa kuu soo baxaysaa moogta marka waxaa ii soo baxday in aysan experiencega iyo intaan ka filahayay uusan lahayn saas darteed waa ka joojiyey marka annaga hadda faraqa noo dhexeeya bilmatalan isbitaallada kale isbitaal waxaa jira dad oo ganacsato oo kale leeyihiin ninkaas aan kuu sheegay hadduu isbitaal oo nin aan surgeon ahayn ama qalitaan ay u tegi lahaa wuxuu rabu samayn lahaa dad badan baana baalkan yaraahdo ku dhibaatoobi lahaa sida ay dhacdo dabad inta meelo la geeyo aniga ii yimaado inta qalitaamo lagu sameeyo qalitaamadii ka soo halaaba marka muhiim weeye in oo qofka isku aaminayo inuu aqoon leeyahay waan gartay doctor aad baad umahadsan tahay waxaa jira marka laga soo tago kale magaalada muqdisho dhibaatooyin fara badan ayaa ka jira qaraxyaa ka dhaca maxabadaa la isku ridaa dadku waxaa laga yaaba in intooda badan waxay kala geedaan soo dilaan waxaa dhici karta in bilooyin kadib inuu qarax dhaco laakiin waxaa jirta bulshada Soomaaliyeed wax iyagu aan ka harin mar walba haysta oo baalka la yiraahdo basiirka annaga iyo dadkana daawanaya doctor waxaan kaaga fadhinaa baabasiirku
inta badan bulshada Soomaaliyeed waxaad u malaysaa boqolkiiba 80 inuu hayo dhibaatada qofka ka dhalan karta haddii aan laga qaban ama qalin aan lagu sameyn maxay tahay saa u sheegtay baabasiirku waa wax cudur aad u badan qof noloshiisa aysan soo marinna ma way jirtaa aniga oran kara laakiin qof waxa laga yaabaa muddo kooban buu hayaa qofna uu la noolaadaa oo dhib uu ku keenaa communication buu ku keenaa marka waxyaabaha keenana oo aas-aaska u ana waxa ka mid ah qaab nololeedka oo dadka ka mid ah annaga Soomaali haddaan nahay waxaa la cunaa bariis iyo baasto biyo badan lama cabahayo waddan kale baan ku noolnahay waxaa dhacaysa marka qofka saxaradii inay adkaato marka suu musqusha u aado inuu jiirasho ama riixitaan uu sameeyo riixitaankaas waxay sababaysaa marka in oo xididadii dhiigga meesha gadaal dabada ku yaalay ay kala fidaan bararaan dhiigna ku istaago marka baabasiirku wax kale maahan waa xididadaas dhiigga oo dabada mara oo kala fiday weeye fiditaankan waxa ku keenaya mar walba uu caloosha maaragta pressurekeeda qofka riixitaanka caloosha pressurekeeda uu bato sida dadka qaab wuxuu ku badan yahay dumarka uurka kale waa ku badan yahay sababtoo ah ilmihii waxay pressure ama cadaadis ku sameynaya wuxuu ku badan yahay dadka waayeelka odayaasha oo kale oo qanjirka prostate-ka oo kale qaba sababtoo say u kaadiyaan kaadidii baa qanjirka xirhaya markay u kaadiyaan in riixaan weeye riixitaankaas wuxuu sababayaa in uu xididada dhiigga ee meesha dabada ku yaalla iyaguna ay kala fidaan bararaan marka dhiiggii ku harhaya marmar uu guntamhayaa wax xanuun badan weeye markan wuxuu kala leeyahay marxalado kala duwan buu leeyahay heerar buu kala leeyahay kan koowaad kan labaad kan saddexaad kan afraad caadiyan kan saddexaad iyo afraad waa inta badan qalitaan loo sameeyaa laakiin balse waxaa lagu wacyigeliyaa dadka dadkaas qaba aniga in badan bay ii yimaadaan qalitaan loo sameeya mayba eraa sug sababtoo haddii xataa qalitaan loo sameeyo macnaheedu wixii sababay haddaan la daaweyn mar walba kusoo noqonaya maxaa sababay saan horey ugu sheegayay waa qaab nololeedka marka qofka qaab nololeedkiisa in wax ka bedelo way see wax uga bedeli karaa in biyo badan la cabo waxyaabaha qubka leh ama barkan yaraa fiberka raashinka qubka leh in uu qofku cuno inuu caadaysto waqtiyo go-an oo musqusha aado barasho weeye ma ogta marka qofku saxaroonhayo inuusan jiirashada maaragta iska ilaaliyo waxyaabahaas baa la sameeyaa daawooyin la qaato oo qofka bilowga u fududeynaya way jiraan waa gartay doctor Shaafi aad baad u maasantahay waqtiga qaaliga barnaamijkan noo siisay magaalada Muqdisho markaan eegno kale waxaa ku yaala xaafado badan oo inta laba maqsiin inta laga furto loo qortay xarunta dabargoynta iyo qalliinka ee baabasiirka dhacdo waxaan usoo joogay doctor ah in nin internet qalliinka ku sameeyay baabasiirka ka hagaajinayay yiri oo ka jaray xididkii dareen wadahooda taana ay keentay ninkii inuu meesha ku waayo inuu wax dareemo oo anaag uusan haweysan oo dareemiyo dhan ka dhigay heer isla gaar qofka diidaysa la qaado xoraansi badan aan sameeyay isbitaalka Shaafi waxa uu isbitaalka dadkii inta badan ay yimaadaan qalliinada baabasiirka laga sameeyo ma isla aqoon darro badan oo hore u jirtay dadku waxay keentay isbitaalkaada ay ku sawirtaan saan ku sheego waxyaabaha khaladaadka la sameeyo yani aniga si aan qalitaan u sameeyo shahaadaan soo qaatay 6 sano oo takhasus iyo sanad kale dheeriya 7 sano oo baan baranahay 7 sano waxa sii dheer intii sano oo qofka gacanta lagu qabanayo sidii ilmo yar oo markaa socod barada saa u socotay oo xagga ka leexasaan u sameeyay dawadana waa yani meesha dawadana waa meelaha jirka bini'aadmiga ugu muhiimsan cuduradeedana ugu dhibka badan yihiin sababtoo ah waxa injir baa ku jira injirkaas marka haddii ama la jeexo ama baalkan yiraahdo wax khaldan lagu sameeyo waxa imaan kara in qofku ama saxaradii ceshan weydo ama ay ku xiranto dad badan oo la soo duray oo duritaanka inta lagu sameeyo dabadii oo dhan maaragtay ay gubatay oo ay xirantay baa noo yimaada
marka muhiim weeye qofku waxaan kula taliyaa xataa aniga haddii la ii yimaado talada aniga aan siinahayo dadka Soomaaliyeed waxa weeye meelo kala duwan baa la tagaa meelo kala duwan yani qofkii ugu horeeyo wax kuu sheega inaad qaadatid maaha different yani fikir kala duwan inaad raadisid oo dad takhasusaadkaas leh qalitaanka kale qof walba fikirku ka qabo aad raadisid ceebna maahan qofku wuxuusan aqoon inuu yiraahdo waxaas ma aqaano ma sameyn aqaano ma ogta waa isku kalsoonida weeye iyo kan run sheegidda weeye waxaa jira waxyaabo aan wadanka lagu sameyn karin oo dibadda lagu sameyn karo waxaa jira waxyaabo ama cudurro meel walba adduunka aad tagtid stage-ka inta dhaafeen aan waxba looga qaban karin marka dadka waxaan kula talinayaa in ay taxadaraan naftooda inaysan maaragtay aysan cid walba ku aaminin aad baad u mahadsantahay doctor Shaafici waana kaaga mahadnaqayaa qaaligaadna siisay barnaamijka ayaga bogadiisa aan ku dhownahay waxay tafriid ugu dambaysa ee bulshada ku daawanaysa barnaamijka tala dhaqtarka gaaraan TV Dalsan ka daawanaysa aad u diraysa aad baan kaga mahad celinayaa wacyigelintan aan bulshada la wadaagayno kaliya waxaan oran lahaa sida horeyba inaan ugu sheegan filayaa waxaan rabaa inaan la wadaago horta dhakhaatiirtiina ku kalsoonaad waxaan ka wada wadanka waxyaabo badan oo horey wadanka loogu sameyn jirin baa loogu sameeyaa adduunkana way ka dhacdaa dad waxaa arkaysaa Mareykanka inta ka yimaada anaga Yurub bay noogu imaan jireen ama inta Mareykanka ka taga waxay aadayaan markan yaraada meelo kale aadayaan marka dadka iska yar percentage aan iska yar oo aan dad aaminay iska jiraya meelo badan aadaya aniga waxay ugu dhacda marar badan ama dhakhaatiir badan isbitaalo kale dad wadanka gudihiisa wax looga qaban karo ay yiraahdaan waxba lagama qaban karo lagama qaban karo dibadda aad dadkaas oo yimid oo qalitaamo aan u sameynay oo wada fiican marka waxaa loo baahan yahay in ay dhakhaatiirtooda ku kalsoonaadaan aniga waxaan wax ka qaban karo waxaan iraahdaa waxba kama qaban karo aniga shakhsiyan balse waxa laga yaabaa dad kale ay magaalada joogaan inay wax ka qabtaan raadiya oo yani fiiriya marka taladayda waxa weeye yani naftaada qof walba qofka ku aaminaysid ka taxadar arrimaha caafimaadka khaasatan qalitaankana waa meel haddii xubin la jaro ama dhib la geysto in gadaal ay usoo maaragtay sidii noqoto suurtagal ma marka intaadan balkan yiraahdo intaadan fal ka fiirso lama yiraahdo marka intaadan qof isku aaminin qofkaas historygiisa ama intuu qalitaamo sameeyey ku guuleysashada qalitaamadu sameeyo waxyaabahaas oo daacadnimadiisa waxyaabo badan baa in la fiiriyo u baahan aniga waxa ii yimaada dad badan oo qalitaamo u baahanayn oo meelo kale lagu yiri waa lagu qalhayaa ayagoo marxaladii la rabay in qalitaanka loo sameeyo aysan gaarin marka dad waxaa moodaa marka qaarkood in ay tahay inay usoo shaqo tageen aan fiirinaynin sumcadna fiirsanayn alla kacabsina aysan jirinin ay rabaan kaliya in cadaysi sidii camal oo kale oo jeebka wax ku shubo waagaag daawadayaal guud ahaana barnaamijka talada dhakhtarka TV-ga Dalsan caawa inta aynu kusoo gabagabaynay tan ay kulanta dambe sida ay nabadgelyo waxaan ugu mahad celinayaa barnaamijka dhakhtarka igala qayb galay oo waqtigiisa qaaliga inoo horay Dr. Shaafici Aadan Dirar tan ay kulanta dambe sida ay nabadgelyo